kulanti habboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad Aalaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan geeyiga Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa dawladda Djibouti oo beesha Ciise ku wareejisay hub iyo gaadiid si ay ula dagaalamaan beesha Samaroon xogii u dambeeyay hubkaasi halka laga soo galiyay tiradooda inta la egtahay halkan kuula wadaagi doonaa waxaa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doonaa madaxweynaha Somaliland oo amray in ciidamo dheeraad ah la geeyo Awdal si ay u kala dhaxgalaan beelaha Samaroon iyo sidoo kale Ciise muuqaalkan ayaan kuula wadaagi doonaa waxaa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doonaa xaalad kacsan oo laga soo tabinayo in xiligan ay ka taagan tahay gobolka Awdal xogii u dambeeyay halkan kuula wadaagi doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhigam baleelkan fursi ku soo gaaray muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan waad ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabnaa beelaha Samaroon sidoo kale Ciise dhawaanahanba waxa ka dhex taagneed xiisad culus oo sababtay dagaal sababay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac xiisada labadan beel ayaa muddo soo jiitamisay iyadoo dhowr mar la isku dayay in xiisada la soo gabagabeeyo isla markaana la soo afjaro balse waa lagu guuleysan waayay odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ayaa isku day badan sameeyay dhowr marna waxa la joojiyay dagaalkaasi inkastoo si toos ah dagaalka uusan u joogsanin oo mararka qaar uu dib u soo laba kacleynayo beesha Ciise ayaa waxay tahay kuwa inta badan weerarka qaada isla markaana Samaroon fadhigooda ugu taga balse waxay halkaasi ay kala kulmaan iska caabin xooggan dhowr mar ay sidaan oo kale beesha Ciise weerar kala duwan ugu qaatay beesha Samaroon iyadoona mar walba labada dhinac xanjabaado kala duwan ay hawada isku marinayaan markana waxa la soo tabinayaa in dawladda Djibouti ay hub iyo gaadiid ay u geysay beelaha Ciise si ay dagaal culus ay ula galaan beesha Samaroon iyadoona in mar walba in dawladda Djibouti ay garab xoogan ay u muujiso in beelaha in Ciise iyadoona mar walba lagu tilmaamo inay tahay hubka sidoo kale gaadiidka ugu badan ee beelaha Ciise ay ka helayaan dawladda Djibouti shalay ayaa waxay ahayd markii ciidamo ka socday dawladda Djibouti kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 2,000 oo askar ay gudaha u galeen Awdal maantana waxa la soo tabinayaa in hub iyo gaadiid loo geeyay si ay dagaal ay mar kale ay ugu qaadaan beelaha Samaroon dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa bixiyay amar degdeg ah oo ku aadan in ciidamo dheeraad ah la geeyo meelaha dagaaladu ay ka socdaan si ciidankaasi ay u kala dhaxgalaan beelaha Samaroon iyo sidoo kale Ciise oo mar walba dirirtu ay ku dhaxmarto gobolka Awdal iyadoo toddobaadkii hore sidaan oo kale ciidamo la geeyay kuwaas oo ka socday Somaliland balse beelaha Ciise ay sheegeen in ciidankaasi ay garab ay siinayaan Samaroon duulaan xoogan ay ku qaadeen balse ciidankii Somaliland halkaas la geeyay ay dib ay uga baxeen iyagoo oo ka fogaanaya in lagu eedeynayo inay garab ay siinayaan Samaroon mid ka mid ah nabadoonada beelaha Samaroon oo hadla ayaa waxa uu sheegay in nabad aysan qaadan doonin isla markaana ay qaadan doonaan hubka noocyadiisa kala duwan ayna iska difaaci doonaan beelaha Ciise hadii ay mar kale ay dagaal ay ku soo qaadaan hal mar muuqaalkiisa ayaan isla daawaneynaa in lagu soo duulay si mug iyo miisaale loogu soo duulay sidaa daraadeed inay wax kastoo ka dhacay halkaa ay dawladdu mas'uul ka tahay waxa weeye waa lana soo weeraray weerar waxaa lagu dhacay dawladdu ay hor socoto waxaa lagu dhacay weerar dawladdu ay mas'uul ka tahay waxaa lagu dhacay weerar gacan bidixayna ayaa lagu dhacay sidaa daraadeed cidda lagu hayo joogtay ka hadlaysee nabad sheegaysa haddaan ahay jiif caaqilkii guud ee beelaha Abrayn nama matali karaan markaan diyaar galownay
inaan wax iska dhicinno inaan wax iska celinno qof kastoo lagu soo duulay inaan dariiqiisa marino markaan u diyaar galoway in la yimaado oo la carqalad noola yimaado aqbali mayno beelaha Abriin waxaan leeyahay sidaad u diyaar galowdeen diyaar u ahaado wax kasta oo nagu yimaadana waan iska celinaynaa hadduu ilaahay ka dhigo hadduu ilaahay yidhaahdo waan iska celinaynaa 3 jeer yaa la doonay in laga shaqeeyo xabad joojin iyo nabadayn lagu jaxaabinayo jabhadaha madaniga ee beelaha Gadabuursi tii u dambeysay waxay ka dhacday magaalada Wadaxid iyadoo lagu soo saxeexay iyadoo nabadayn lagaga hadlay Geerisa waxa Wadaxid ka dhacay weerar qaawuna subaxdii dhalba halkaas caruur lagu laayay maxaa laga qabtay wax laga qabtay ma jirto marka ay sidaa tahay hore waxa u dhacday bishii Ramadaan in la qaatay xabad joojin ma ahayn wala nagu dagayay wala soo urursanayay dawladdu waxay og tahay ciidan kastoo yimiday way og tahay la socota marka mar labaad la dage mar saddexaadka doqon baa tahay haddii mar saddexaad lagu dago doqon baa tahay marka saddexaad hadduu alla yidhaahdo lana dagi maayo annaga dhimashadu mar bay nolosha dhaantaa beelaha Gadabuursi waxaan u sheegayaa ilma adeerayaal dhimashadu mar bay nolosha dhaantaa waa laynagu soo duulay dhulkeenna la doonaya in la qaato maalin walba waxaan ku celcelinaynaa nin wasiirka arrimaha gudaha sheeganaya lagu soo noqnoqonaya waxaan jirin baa ku mashquulaynaa nabadayntu waxay taallaa ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi iyo salaadiinta dhaqanka ee beelaha Gadabuursi nabadgelyada iyo nabadgelyo haddii laga hadlayo halkaasay taallaa nabadgelyada la sheegay wax badan baa ka horeeya nabadgelyo marka la leeyahay wax badan baa ka horeeya sidaa daraaddeed wixii ka horeeyay lama soo qaadin nabadgelyo la soo qaaday annaka waxaan ku go'naa ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi haddaan jiif caaqilkii Abriinahay waxa lagu dhoodhoobayo degmada Lughaya kama madnihin mana qaadanayno dawladda waxaan u sheegayaa ciidankaygu wuxuu joogaa halkaa kaalay soo weerar aqbali mayno adoo shalay idilay oo gacan bidixeeyay ilaa maanta ay tidhaahdid nabad oo odayaal iyagu danaha ay u socdaan garanayn lagu hayay isugu geys odayaal mas ummadda 20 sano soo hor joogay oo guri la soo hor joogay lagu hayay isugu geys cidna ma tashama jirto annaga matalna dadka annaga afkooda ku hadlayna annaga jabhadayga matalna marka ay sidaa tahay waxa lagu dhoodhoobaya Lughaya annagu kama mid nihin kama qayb nihin haddii aan nahay beelaha Gadabuursi
haddii aan nahay beelaha Maxadase, haddii aan nahay beelaha Habar Muuse, haddaan nahay beelaha Abriin anoo jiifka Abriina kama mid nihin mana aqbali karno nabadgelyo gacan ku rimiska ma aqbali karno beelaha Gadabuursina waxaa baaq u jeedinayaa inta nala joogta ee difaaca nagula jirta way nagula jirtaa inta kalena waxaan leeyahay war waa layna damcay dhulkeenna la damcay war soo daadeg wax iska celiya waxaan leeyahay nimanka Gadabuursi ee siyaasiyiinta ee dawladda ku jira moogayaasha moogaana loo yidhaahaa kuwa moogayaasha dawladda ku jira Gadabuursi war meesha lagaa soo doortay ee lagugu tixgeliyey waa deegaankaagii marka la qaato halkee baad ka hadli doontaa halkee lagugu soo dooran doonaa moogow nimankaana waxaa leeyahay moogaatii mooge maalin walba waad soo ordaan dawladdaad soo horyaacdaan dhulkiinana waa la qaadanaya moogayaasha ayaan u sheegayaa taa waxaan beelaha Gadabuursi ee dal iyo dibad leeyahay waa layna soo weeraray dawlad iyo cid kasta wayna soo weerartay cadowga sidaan isaga celin lahay diyaar baanu nahay taa un bala doonay in la gacan bidixeeyo halkaa beelaha Gadabuursi dal iyo dibad jooga waxaan leenahay ha la isku xidhnaado ha la isogaado ha la iska warqabo gacan bidixayntaasi horey noogu dhacday nagu dhici mayso dawladdu markasta waxay kuula imanaysaa way leedahay waa qaran dumis ninkaasi hadduu hadlay qaran dumis weey ninkaa kale hadduu hadlay qaran dumis weey annagu qaran dumis ma nihin waxa weeye laakiin waxay dawladdu tahay iyo waxay naga damacsan tahay yaan arkaynaa cadow bay noo soo horkacaysaa markasta yeeli mayno dhimashaan u diyaarnahay hadduu ilaahay ka dhigo beelaha Abriin ugu dambayntii waxaan leeyahay war dhimasho u diyaargalooba waa layni damcay Gadabuursiyow waa layni damcee war guddiga dhisaska dhigo war meesha ka kaca oo dagaalama haddii aad daawato muuqaalka dhamaysatay aragtidaada inoogu reeb waxaa kaaga baxay qaybta faalada haddii ay tahay markii ugu horeysay uu kusoo gaaro muuqaalkeenana subscribe inoo dheg gambaleelkana furas iyo kusoo gaara muuqaalada kale xiga aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada ood ku maasantahay daawashadaada